بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوة وحالة السوري مدني سيدا جدام مدوغا ابنها كتر سمير ومشكين ورسول الله رسول الله ربعتنا ربكم كل ربعتنا الرحمة لنا ربكم كل ربعتنا بسوقا وقصتك تاوان ورسول الله ربكم كل ربعتنا اللي يا إله بوان عاو halkan waa soo leeyahay waxaan ku falanqeynaa amuuro badan oo ku saabsan dalka iyo directionka ama jihada u socdo iyo xaaladaha taagan haatan oo siyaasadda gaar ahaan doorashooyinka waxaan runtii caaw halkan isugu nimiday bal inaan ka hadalno meesha ay marxaladda doorashooyinka dalka ee muddada soo socota maanta ay marayso. waxaan ku bilaabo warbixin dawaantan waxaa shir hay'adda heritage isu dhigay ka dhacay magaalada Garowe halkaas oo isugu tagay siyaasiyiin badan muhiimadii isugu tagay laakiin hadda shir siyaasadeed aanay ahayn laakiin maadaama meeshii la isugu tagay la wada joogay madaxweynayaal dowlad goboleed ay joogeen dowladda federaalka madaxdeeda qaar ka mid ay joogeen baarlamaanka labada aqal baarlamaanka oo madaxdooda ay joogeen murashaxiintii muxuu ahaa in badan oo kamid ah ay joogeen yaa meesha waxaa ka dhalatay warwaaba la wada joogay ma taladii wax la iska yiraahdo annaga midowga murashaxiinta haddaan nahay initiative aan qaadanay waxaan u tagnay dadkii dowladda noo ahaa haddii ay yihiin dowladda federaalka ah iyo haddii ay yihiin dowlad goboleedyada madaxdooda meesha joogay meeshaa waxaa joogay madax labadaas heer ah waxaan u geynay tala soo jeedin in amuurihii doorashada maadaama la joogo meesha wax la iska yiraahdo way naga aqbaleen soo jeedinteennii waxay dhaheen waa talaan iskula noqonaynaa wixii aan isla soo garanana waa idiin soo sheegi doonaa haddii aad tihiin murashaxiintii guddi aan ahayn murashaxiinta meesha joogtay ee golahan ka tirsaneed ay magacaabeen oy direen habeen iyo maalin kadib waa noo yeereen waxay noo sheegeen in ay aad iyo aad isu soo fahmeen ay laba arrimood laba talo oo annaga u dhiibnay markiiba ay aad u falanqeeyeen oo ahayday inay meeshaan heshiis ku gaaraan waxyaabihii la isku haysta doorashada ka taagnaay kadibna ay kula noqdaan raggoodii iyo inay iclaamiyaan madal la isugu imaanayo waxaa lagu xallinayo si dadka Soomaaliyeed ay rajo ay u muuqato in wixii hore u socdaan madaxdii markay soo shirtay waxay nagula soo noqdeen inay noo sheegeen saddexdii qodob oo ugu taagnayd oo ahayday guddiga doorashooyinka qadiyadda Somaliland iyo qadiyadda Jubbaland ee gobolka Gedo saddexdaas arrimood ayaan arrimaha taagnaay isfaham fiican inay ka soo gaareen oo ay maxaan ku raadayay isaga soo garteen guddigii maxaan ku raadayay doorashooyinkan wixii ka qaldan in laga saaro arrinta Somaliland in ay reer Somaliland inta isku yimaadaan wax isla ogol yihiin ayagoo ay consensus ku yihiin wada ogol ku yihiin inay la yimaadaan sidaas doorasho ay ku galaan iyo arrinteed muxuu ahay Jubbaland gobolka Gedo oo ayadana ay dib ula noqonayaan madaxdii muddo 3 maalmood ana inay jawaab nagu soo celi doonaan oo ay final noo soo sheegi doonaan khaasatan arrinta gobolka Gedo khusayso nasiib darro waxaan dadka Soomaaliyeed inaan u sheego madaxdii naga soo tagtay ee Garowe nooga soo tagtay ee 3 maalmood muddada naga qaatay naguma soo noqonin jawaab naguma soo celinin markaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo raggii kala dowlad goboleedaha naga maqnaa markaan u nimiday oon arrintii u sheegnay sidaana la isla gartay nama ayan dhihin naguma soo warcelinin bannaankaan ka maqalnay murashaxiinta doorasho ma ogola iyo intay diidan yihiin iyo waa u sheegnay iyo liiskii keenaan dhahnay iyo waxyaabo sidaas oo kale waxaana dadka Soomaaliyeed in ayadana u sheego qadiyadda maanta taagan qadiyad oo makaanika ah oo bakeerigan inta ka qaada inta dhig maaha waa qadiyad process ama muxuu ahaay wadiiqo inay marta laga rabo kalsooni u baahan wada ogol u baahan maxaan ku yiraahdaa isfaham iyo muxuu ahaay is-aaminaad u baahan waay marka arrintaasi waxay ku habbooneyd labadii talo soo jeeday mid ka mid ah jirta haddii wax la soo garto xataa in la qaabeeyo oo shir inta la isugu yimaado shirkaas maxaan ku yiraahdaa lagu waxeeyo oo lagu soo gunaanado oo la yiraahdo intaana saasa u garanay intaana saasa u garanay halkaan waa noo dhiman tahay ama waa dhameystir la yiraahdo si darro ma ayan dhicin annagoo weli sidii uga dhul sugayna madaxdii maanta waxaad aragtay ayay sii daayeen
ويمالين وركات أركتي وقاركيس أنو قادن كرنو أنك قذف إنه يهي وعلى قصعنا لو بان وليلا يوحلا ميدي ولا ليال ذك سومالي حرنا أنا مش أنا دنا ميدو مرشحين دل كان هدا أيو كرتاني هاي سومالنا أنا نجمع بوني سوتاني له وحاجات كده مدل بسجور الرادين هاي قار كلمات هذا إن أي سبب الله أبو أيقون وبوني سوتاني بلي إن يرانا سبب كتو دل كان صوت قل معها دور شو دجان هبل إمام هبل كم مقال لليه إن لقبت صوت قل معها مدني ماذا دل كان يدعوعه وذا جرك أمد يدعوعه دولة لماذا يدعوعه مركا أريدها سوا غضب ككلا وحصوها ولا عليهن أو عاي رئيس الوزراء وقوي يوم لحظة دول الدولة دي إيمان تلتاعين سيدا يوضع من صحمة حنقبنا هو واقوى سوا مقيه وعلى قط الشرع وعلى قط صعنا لليه وأن لنا ورمد مدي وحدنا يساعين ساليين هو كلا صاحب هذا إيمان تتاجنان الرأي إيمان تإماشك الشيئين كم مثلاً دتك شلا دورتي رأي جاز رأي دجاندود يدتكو يقبان معها ما نكو هبونا ورحنا دتك كم مثلاً الشيئان ما هبونا إن أي ملعونها ما أنت فرديو أيام كرسي أسو بوبينا أسو دحنا دتك أنا لا سوق عن مروجين إلا يرى السحمة ملعونها جمهوريتنا وحلنا قارنا ولا جمار ما إنا ترادي قارك كلنا عيدا ما نضابولا أنو بيسنا يوم حنقول هذا حوق دتك يوسو أفضوبي نيمانك أضياشة ما أنت لا تجنا صاحب هذا أنا إيراني كويهين دتك الصوماليات الدجاجة ده أي دولة دجاجة ما أنت ماشي جوري مثلا رالي كما أخرتاس لما أنا بوبي كذا عيدا نقول بوبي كذا هذه الشيء الدور شو يقارفون حوق عيدا مو بوبي ثاني أنت هروا كوين تهاي الله جوجل بيجو الله ترتيبيو الله وحدي مريان لنا دلك اللي سكو هاي أيوب باهية مدحوينها دلك أنا هايستو إسلجرو إسرابو إسلافة دي مال بقانا وذكر أجارو أي أشار الوريجي دلك هنا إنه سكو هاي أو سدا سكو سي حكومة دو جوجي يو سي شرع جوجي هدي أنا جوجي إن دلك يو إسهايستو إدغاني يو إسهايستو متى أو وريجيو أي الله غفر يا مدحوينها قبل إنه انتفرستو ضد الصومالي إنه الله هذا الدين ضد كم حنفر هذا ساملي ده السياسة ده دور كله إنه الله هذا الدين ضد كلا سيدي روحانتي وكسر تحت لما دعونا حلق مكيني يصير حلنا مدعونه هكون نقضه ثلاثة دي بهو نقضه قضي الصومالي ده نقنا وهذا كور ضد كبلن قاده وحب بلن قاده في قضي الصومالي ده نقضه السود دجو ضد كهلا فريس أسكرته يهوب كمان والبلسيد دابوري شلي يقدر هذه أسبوعي دور قدر يقول دابولي شلي ما أنت محنكور هذا هيران بس دابولي درات إتيكو الرئيسي محنكور هذا سمرة بس دابولي محل دابولي اللوجينيا دور شد إنه بصور عوال ما مولد ماشي جوجاي مسلم تود وحن قادرنا هنا لوكين عسكر وحن كل عن هنا أيونا دهن مدعونون وسيد أسرع مسورودو مدعيسو صوت الجل سيركو معه marka arintaas waa qatar hadda koorna waa sheegnay annaga qadiyada aan madaxweynaha uga ra'yi duwanahay doorasho kaliya ma aha dalka inuu qatar ku jiro waa midnimadiisa inay qatar ku jirto waa in maxaan ku raadey wadadana ay ku dhamaato meel aan fiicnayn waayo waxaan leenahay hala soo noqdo xalku markii intee jira xalku wuxuu jiraa in la wada fariisto oo la wada hadlo أو قضية تاعنا ومصيري وأمضى مستقبل كيري وضل كان مدمريسي وإسكوهاينتي أمضى كالسوري أبوركي دي بوشيسينتي مدة لصوت السايق أو لسيحو جيواي إن بوغيه للدنقية أو ديبلو داوعي معه ضد كان ميرو سوق جاري لما ديبلو معلي كرو لما وحين كرو يوركع محمد سوق علمته سغاشي قال الله نقرأ اللي كان إيو وعبدين هذا وعلى سكاشة في عدو نقول يسمى عدو نقول عدي خلدان ما أنت عنت لا قبل عن رجوع ليه موجي ضل كان يهودي هلاك أمنا نقول أمضى أنا وقت من المجلس عقلي أمضى يدرن أمضى اللي وقف معها أو اللي يراد وحمد قرتان يراد معها مركو حن لنا يا وراليان ميدو مرشحين
taladiisu waxay tahay xalka haweenka gogolha la isugu yimaado dadka ay khusayso oo talada loo dhan annagu aan ka mid nahay ha yimaadaan caalamkana garab taagane maalin walbana kaalmaynayo ha soo fadhiista meesha ha joogo meel loo wada dhan yahay fagaaro ah wax la qariya ma ah wax weyn waaye meel la joogo fagaaraha arrintaas ha looga wada hadlo ha looga heshiiyo horay ha loo socdo waxaan rabaa qadiyadda kaloo raba inaan ka hadlano oo aan maanta arrintaan meesha uga hadlo waxay tahay waxaa beryahan suuqa la geliyey nimanka murashaxiinta ma rabaan doorasho 8 February in la gaaraa la rabaa kanaa la rabaa war annaga sidaynaba talaxumo iyo hoog kamaba talinaba dadka ka tali lahayna maahay dalkaanu meel u jeeysteen 8 February in la gaaro cidda mas'uuliyadda ka maanta haysa horta mas'uulka anaga mas'uulka maahay shalay heshiisyaa la galay dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 3 dhuusamareeb shalay waxaa la lahay waa laga soconaa la lahay ayadoo dowladda qaarkood maqan yihiin waxaa xaqiiqo noqotay inaan laga soco karin muqdisho la isugu yimid bishii September waa la heshiiyey heshiiskii waa maanta dhaqangelintiisa wax la isku haysto nasiib darro dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waa heshiiskii inuu dhaqan galo waxa diida waa dowladda federaalka waay iyo intii muxuu ahay inuu wax u hoosaasay sanadka iyaga waaye waxa dalka ciidamada ku daabulaya doorashada in la boobo in la xoogo in la dhaco oo murashaxiinta mid kamid ah oo la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in wax loo dhaco wax loo boobo rabaan marka masiibkeeda lama dhici karo herti lama ordi karo kuwa saas ku aaminayna ka joogaan lana madaxweynaha ka joogaan lana dalka 8 February annagu taariikh qoran oo dastuuri oo meel taalo waa laga guuriyay muhiim ma dhahayn laakiin xalan rabnaa wax socdaan rabnaa doorashadii aan rabnaa oo si sax ah ku socotaan rabnaa haddii doorashadii si sax ah ku socoto 8 February ay nala dhaafto waaba socotaa waaba ku dhex jirnaa maanaga ka dhex qaylin karna laakiin doorashadii la bilaabi ma 8 February ay rabaana dadka lagu eedayna wax kale uma aragna waqtiga in la si doogsado in la rabaan u aragnaa hadday dhab ka tahay 8 February in la gaarin ama 8 February iyo agagaarkeeda wax socda inay ku soo dhamaadaan hadday dhab ka tahay wax sax ah la bilaabi lahaa dowladda madaxweynaha iyo wiilasha u shaqeeya waxaan leenahay 8 February haddii balaaya dhacaysa adika keeno haysaan dalkan 8 February doorasho inay dhacday ahayd haddaanay dhacaynina walba inay soo muuqatay wadada ku soo jirtay inay dhacaysay ahayd 27 December baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday madaxweynaha waqtigiisina waa 8 February asalka waxa aan waa baarlamaanka haddaan baarlamaan jirin ama 8 February madaxweyne la doorana ama 8 June iyo July iyo December 2021 xataa ama madaxweyne la doorana haddaan baarlamaan jirin baarlamaanka iyo doorashadiisa waaye mas'alada waxay ka taagan tahay waxa in la dhacal rabo ciidamada kor iyo bar loogu daabulayo diyaaradaha loogu qaadayo waa arrintaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan rabnaa bis mowqifkeena wuxuu yahay walaalayaal wax la dhici karo wax la boogi karo ma jiraan dadkuna raalli kama ahayn aan intaan ka wada tashano wax Soomaali isku raacsan tahay keena oo annaga haddaan rabina awal baa naga tagi jirteen idinku isku soo raaca laakiin adikana idima rabno murashaxiintii iyo mas'uuliyiintii haddaad tihiin annaga dhexdaynana isma rabno koox yaroo iswadato maxaan ku rahaa suuq madow ahaa meelaha wax ka bixayso masiirka ummadda Soomaaliyeed suuq madow kuma socon karo afar nin oo isjecel ma wadi karaan afar maxaan ku radaa hoosta muxuu ahay balaayo u heshiis ma wadi karaan alla dhiga xaajada madaxweynaha iyo prime minister iyo guddoonka baarlamaanka iyo cid iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedka waxaan leenahay ha noqonina ninkii yiri hilibkii madaxa inta saartay hilibka hala qaybiyo war dhulka soo dhig waa la qaybiyo hilibka laga kala maya hala qaybiyo madaxana ku siisay hilibkii ha noqonina leenahay xaajada dhulka soo dhiga waa laga wada tashana waana lagu heshiinaa waana lagu nabadoobaa waana la isku jeclaanaa la isku nicmaayo waxa qaanuunku qabo sharcigu qabo dadku rabaan la iskuma naco aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale waa ku celinaynaa waxaan leenahay doorashada iyo mustaqbalka iyo masiirka ummadda iyo dalka midnimadiisa waayo waxaan ka hadlaynaahay hebelaa xagga loo xaqa iyo hebelaa loo jumhuuriya hebelaa sitoo laga soo dhigaa iyo ma aha doorashadaani dalka qatar ay geli kartaa
من نمديسي قطر جري كرتا دولة نمدينا iyo gobnimadeena sovereignty-geena qatar geli kartaa wax sahlan maahan yaan la dhayarsan ummadda Soomaaliyeed dhagahooda indhahooda ha taagnaado hana foojignaadaan leenahay aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddii dowladdu ay ku adkaysato halka ay ka taageerto haddii dowladdu wixii maanta ay ku dhawaaqday inay sii wado ay go'aansato ay ku adkaysato wax fiican maaha waana waxa aan ka digayno aan diinayno annagu markaas tallaabo kalan qaadi doona annagu tallaabada aan qaadi doono waxaan rajaynaynaa inaan loo baahanin oo aanay imaanin oo meelku dowladdu intuu soo noqdo ay doorashada dhulka soo dhigtay حق سيدان كدول ما يسان مدحوينه حال دي من مبا جربا ان كتشنا وحي دولكا لا سو دغay aan ka heshiino halka ka weynaysa mandayada ii sheegaysa dahays waa ma